السلام عليكم كسو دوادا أميرا's كوشين maanta waxaan rabaa inaan idin faa'iideeyo waxaan rabnaa inaan sameysano yaanyo shishiid waliba mid dabiici ah waxaa garanaysid ka sameynaysid ka faa'iideysan ku leeyahay video hadduu ku qanciyo like garey share garey inta nagu cusubna nagu soo biira follow soo dhaha wax badan baa naga faa'iidi doontaan qaabka ugu sahlan oo u sameysan kartid yaanyo shishiid ka faa'iideysi wacan soo dhawaada video share gareeya si oo asxaab badan uga faa'iidaan ila socda meesha waxaan ku haystaa yaanyadana ka sameey rabnaa ilaa 3 kiilo oo yaanyo shishiid yaanyo waaye caadi ah waa soo dhaqaysaa kadib waa jarjaraysaa dabka saaraysaa dabka ay saarnaanaysaa muddo ilaa 5 daqiiqo waxaa la rabaa inay karto koodi hore yaanyadana waxay ku kartaa ilaa 4-5 daqiiqo camal adiga markii ka sii dambe biyaha ayada dhalaysa biyaha la saarin kaligeeda soo nadiifinaa soo jarjari dabka saare ayada oo biyo dhalayso ka bacdi way kareysaa adiga markii ka sii dambe waa sii jilceysaa qaadada marinaysaa ama miika ka bacdi marka ay jilacdo ayada ay karto waa dareemaysaa mashiin ayaa soo qaadanaysaa markii yara qabowdo mashiinta ayaa ku gureysaa yani waa shiideynaa okay saa u jeedinbo mashiinta waxa waaye in yar ayaa u shubaa waan soo shiidi doonaa waxba kuma dareysid biyana ha ku darin hana u dhaweyn sababtoo ah yaanyada ayada biyo ka sameysanbo marka waa kaasa waa soo shiidaya saa u jeedinba kullina saasaan ku wadaya waana miireysaa markaa soo shiididba saa u jeedinbo saan ayaa sameynaysaa waa miireysaa ayada dhanna saas ayaa usoo miireysaa ka bacdi haddana waxaa mar labaad ayaa maxay ahayd dabka ku celin doonaa waxaa la rabaa inay shishiid noo noqoto okay ka bacdi asxaabta ila socda idin leeyahay videoga waxaan ku dhahay wax yar oo kooban waaye waxaan idin leeyahay like ta saara oo share gareeya igu soo biira insha Allah wax badan baad naga faa'iidi doontaan waxaan rabnaa inaan gaarsiisaan ilaa 5,000 followers marka waxaan idin leeyahay please codsi waaye share gareeya videoga yaanyadii digsi kale haddana kusoo shubay haddana waan kusoo celiyay ilaa 5 daqiiqo ayaan rabaa inay gursato yani biyahan dhanka dhamaadaan ay noqoto mid adag oo wax yar oo cusba hada kusoo daray wax yar oo sokor aan kusoo daray kadib cusba ayaan kusoo darsanaynaa sokorta ilaa 3 qaado waa cusbadana wax yar waa ku badinin ka bacdi hadana qaadada marinaysaa ilaa 5 daqiiqo camal saas u wadaysaa daarti food color oo guduud ah ayaa wax yar ku daraysaa si ay guduud kugu noqoto okay saas ayay sii noqonaysaa markii ka dambeeyay sii guursanaysaa wax saliid ah ku darin ayada la iskeeda u kareyso u adkaanayso okay ka bacdi waa kaasa asxaabta wax yar oo food color ayaan ku darnay sidaas ayay noqotay masha Allah way guursatay yani culeys ay noqotay kaaliska arag saas waa wax saas u badan maahan kadib dhalooyin yar yar ama bacooyin yar yar ayaad ku xirxiraysaa fridge-ka ayaa gashanaysaa qaybta hoose kadib wax yar u isticmaalaysaa that's it yani shishiid dabiici ah guriga ku sameynay marka waxaan ku leeyahay videogan like garey share gareeya hadee waxaan idin leeyahay soo yaaca asxaabta wax badan baa idinka faa'iidi doontaan Amira's Kushiin wax badan baa idinka faa'iidin doontaan bidnillaahi alkariim isla socod wanaagsan sidoo kale bisbaas shidni ayaa idinkaga faa'iideyay assalaamu calaykum kusoo dhawaada Amira's Kushiin maanta waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo sida loo sameeyo bisbaas shidni aad iyo aad u aadna u caraf badan haddii aad tahay reero bisbaas video waa ku muhiim siibo waxaad sameysan kartaa martii ku imaanayso marka amuurta qabtaan marka ka faa'iideysan ku leeyahay videogana meel fog gaarsiiya waa si yar oo saxsan oo masha Allah qurux badan haddii aad ku cusub tahay page-ka soo dhawo gacmo furan ila socda mashiina inta soo dhigtay inta waxaan ku haystaa yaanyada waa ilaa 4 xabo oo soo jarjarnay mashiinta ay kusoo gadinay waxaa kale kusoo darsanaynaa timir aan lafaha ka soo bixin waa taasne adi rubac wax tumin camal waa qiyaastaas kana waa tuunaan diirka kore ka soo qaadnay waxa kale kusoo darsanaynaa bisbaaska waa ujeedaan wax badan ayaan sameynaynaa kana waa bocor waayaan soo jilcinay macaan uu ka dhigayaa bisbaaska biyo ayaan baaquliga kusoo shubtay haddana waxaa waaye waan ku shiidaynaa geesaan iska dhignay digsi ayaan dabka soo saartay saliid ayaan kusoo shubay waxaan kaloo kusoo darsanaya alaabtii aan isku soo shiidnay u jeedayna hadda inta tusayay hal mar gab kusoo siinaysaa alaabtaas saliidda markay kululaato intaas u jeeda ayaan hal mar isku soo shiilaynaa
si fiican isku dhex gelinaysaa, daboolka yara saaraysaa ilaa 2 daqiiqo. Geeska waxaa ii yaalo raqay aan biyo lasoo dhigay oon aan soo miiray. Raqaygaasaan kusoo darsanayaa. Raqayga muhiim waaye, waa kaasaa biyihiisa waaye saana ujeedaan. Almeerihii wixii dhan waan ka bixin, waa soo miirnay. Haddana waxaa waa isdhex gelinaysaa. Kadib waxaan ku darsanayaa alaabtan waa liin dhanaan iyo wax yar oo paprika ah ya filfil xataa daarto ku darsan kartaa. Kadib haddana waxaa isku qaseynaa, si fiican isku dhex gelinaysaa. Yaanyo shishiida inta ku hayaa. Yaanyo shishiida ayada dhan ayaa rabnaa inaan kusoo darno. Waxaa rabnaa inay noo noqoto wax kale, ma garateen. Saa ujeediinba shishiidii dhan ayaan kusoo gambinay. Kadib haddana waxaa waa isdhex gelinaynaa, si fiican isku dhex gelinaysaa. Dabkana ha ahaado dab aan dheereen oo gaaban. Kooda waxaa markaas ku dardaraysa waa gaabini dab, kadib ayaad haddana dabka u yara dheereynaysaa. Hadda waa kaasaa si fiican ayaa haddana isku dhex geliyay khudaartii. Haddana waxaa waxaan kusoo darsanayaa caano garoor ama yogurt plain ah, caraf lahayn. Kadib haddana waa isku qasaysaa, waa isdhex gelinaysaa, okay. Markay si fiican isku dhex galaan, cusbo yar aa kusoo darsanaysa. Hadda ay tacadid liin dhanaan ay ahayd shiidan, kana waa cusbo dhanka adaa iska fiirinaysa, daarabina muhiim ma ahan. Hadda waa kaas, dabool ayaa u dheereynaysaa ilaa 2 daqiiqo 3 daqiiqo. Kadib aa usoo laabanay, iisoo noqday masha Allah. Waa ujeedaan soo firfirdhayo, waa inaa iska ilaalisa. Alaabta xalwo camal waaye, waa ku gubay haddii kale. Hadda waa kaasa masha Allah, sidaa quruxda badan dhiin u noqday. Still wax baa ka rabnaa inaan kusoo darno, waan idin tusayaa. Kani waxaa waaye ketchup ama tomato sauce waxa la yiraahdo ayaan kusoo daraynaa. Waa garanaysaan, okay. Dhadhanka ayaa sii macaanaanaya, okay. The more aad sii qurxisid wax badan ku darto, the more uu sii macaanaanaya basbaas shidnigaaga. Kani waa ketchup ama tomato sauce. Ka bacdi haddana waa isdhex gelinaysaa. Karis badan uma baahno markaan, kaliyeed waa isdhex gelinay. Dabkan waa gaaban yahay. Haddana daboolka ayaa yara saaraysaa. Bacdeen waa kana alaabtii sidaan ayay noqotay, masha Allah tabaaraka Allah. Sidaa quruxda badan ayay kusoo baxday. Meeshaas ayaan kusoo shubtay, basbaaskaasna iska soo dhiganay. Hadda waxaan ku dhahay soo tijaabi, inaba caadi ma ahan. Dhadhanku waa heer sare, caraf. Waxaan ku dhahay martiqaad iyo waxyaabahaas daa qabtaan alaabtan samaystaa. Hadda waxaan ku dhahay cuntada waa kugu socodsiina, aaduna u macaan yahay. Soo tijaabiya, video like garee, share garee. Khayr iyo caafimaad baa idin rajaynaya. Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada Amira's Cushion. Maanta waxaa idiin wadaa qada aan inaba caadi ahayn, isku dheelitiran, dhadhan macaan leh. Waa maalin jimca u barakaysan. Waxaa idin leeyahay dhammaantiina jimca mubaarak. Ka faa'iidaysta muuqaalkan, aad iyo aad u fudud yahay. Wax yar oo simple ah ka sameeyay. Hilibkana ujeedaan waa hilib biskeeti, sidaas loo gaduudiyey, jileec, caraf, dhadhan macaan leh. Si yar oo simple ahna loo sameeyey. Ka faa'iidaysta idin leeyahay, soo dhawaada. Qada yar oo dhammaystiran waaye. Insha Allah hala like gareeyo, hala share gareeyo, meel fog gaarsiiya. Adigan dhiirigelin ayay noqonaysaa si asxaabada nooga faa'iidaan insha Allah. Saa ujeediin hilibkii biskeetiga meesha ka soo saaray geeska. Hadda waxaan ku dhahay waa maqli jirteen hilib biskeeti sidaan u sameeyay maanta waa ka duwanta kuwii hore insha Allah. Ila socda indhaha nagu haya, like tana ha nala dhaafina, waad mahadsantihiin dhammaantiina. waa kaas ahay maasha Allah tabaaraka Allah ya Allah horta gabadh Soomaaliyeed ma cid gaari karaysaa jirta eeg waa baxsan boqorsan edabsan quruxsan bilicsan boqoran simman sagal saxsan xitaa haday qaldan tahay iyada saxsan hadal ka keenin markay nin ka hesho quruxdeeda iyo jidhkeeda banaanka ma soo dhigto sababtoo ah taas dareenkiisa soo jiidanaysa digsigan ayaa isticmaalayna kan grill pan waaye waxyaro batar ayaan kusoo daadiyey ama buuro hilibkiina waa kana 1 kiilo oo waxa waaye hilib geela ah waan soo jijibiyey waa karsaysiin sida hilib biskeetiga loo jijibiyo marka sidoo dhug oo khafiifna waa ka dhigaysaa kadib waa kana waxaad soo saaraysaa meeshan haddaad saliida ku dubi kartaa okay asaga tan intaa soo saaraya birta way balaaran tahay saas darteeda u jeclaystay inaan ku sameeyo hilibka
waa isku dayaynaa hilibka dhan inaan meeshaan soo saarno inkastoo ay birtana yartahay hilibkana halkii leeyahay. Marka saa ujeediin waa kaasaa saa u taqaaniin hilibka markuu waxyar saarnaado wuu isku laabanaa, yacni sidaa ma ahanay balbalaarka waxyar wuu isku laabanaa wuu isku shuuqaa yacni. Kadib waxaa waaye waa kusoo carcariiriyay anne waqti siinaysa daboolka saarayaa, biyo dhan laguma daro, waa sugaysaa marka horeeto. Kadib waa kana asxaabta 5 daqiiqo kadib saano noqday wuu isku shuuqay isku yaraaday. Kabacdi anna waa isku sisikinayaa, kuwa kala meesha yaalo waa kusoo darayaa sababtoo laba goor inay isla karaan rabaa hada kala sugo waqtigan igu sii yaraana ma garateen. waa kusoo daraa kabacdi waqtiyaa siinayaa ilaa 20 daqiiqo camal. 20 daqiiqa maqnaa biyaan ku daray koob iyo bar camal. Kadib waa markaana ujeedaan asxaabey waa kaasaa wax soo sii wax kumaana darin iskiisa u guduutay. Kabacdi waxaa waaye hadda waxaa waaye waxyar waxa waajiyaalan kusoo darsan doonaa insha Allah ila socda. Kan choma soo saar lahaa hilibka ayaa lagu guduudiyaa waana lagu carfiyaa macaana waaye. Supermarketka ayaad ka helaysaan ha ku badinin da ku basaaid u guduudanaa hilibka in loogu talgalay. Kadib waxyar oo tomato sauce ama tomato sauce ayaan kusoo daray. Kadib waxyar oo beef masala ama curry powder labaduba waa ku darayaa ma garateen. Kabacdi markaa saas ugu soo dartay xawaajiyaasha waxyar oo biyo oo meel fog ku daraysaa si ay iskugu soo celceliso. Cusbadana ha ka iloowin. Okay, cusbada waxaa fiican siiba markii hore markaa hilibka soo saarisid inaad ku dartay. Waxaa ujeedin soya sauce waa 3 dhibcood camal aan kusoo daray. Ha ku badinin aad u kaaga guduudanaa ma garatay hada ku badisid. Hadda saas markaas ku celiyo waxyar oo biyo ku darayaa daboolka saara dabkana aad u gaawina marab inuu iga gubto. Kabacdi waa kaas asxaabta qaaliga ah waan soo laabtay. Wow, ma sha Allah tabarakallah, carafta lagama sheekeyn karo. Waxaan ku dhahay wuu ku soo baxay lagama sheekeyn karo. waxyar waxaan kusoo daadiyay barbarooni iyo basal ah oo carfis ah. Bacdeen diyaar waaye hilibkii waxaan u diyaarsaday qadadan maanta bariis jaala ah ayaan u diyaariyay ma garateen. aan ka sameeyay huruud iyo waxyaabo kale laakiin hilibku maan shiilin bariiskaas waa arki doontaan. Marka waa kaasaan ku dhahay final result sidaan ay ku soo baxay caraf qurux lagama sheekeyn karo. hilibka waxaan ku dhahay jileec buu noqday. Hadda waxaan ku dhahay caruurta familka martidaada u diidaysa malahan waa way ka helayaan dhamaantood insha Allah. soo tijaabiyaadin leeyahay. bariiskii ayaan soo diyaarsanayaa. Kabacdi hilibkii aan geeska ka soo saartay. Hadda waxaan ku dhahay qado dhammaystiran waaye. bariiska hadda ka hor idin soo geliyay marka waa kaasaa bariis iska normal ah ma garateen oo la shiilay bariis sabeed oo la shiilay laakiin bilaa hilib waaye. marka waa kaas insha Allah soo tijaabiya idin leeyahay qado yar oo simple ah maadaama jimco tahay waan jeclaystay inaan idinkaga faa'iideeyo muuqaalka. insha Allah like tahay ila dhaafina dheergalnay tahay ii share gareeya idinkaga mahad celinaya dawashadiina quruxda badan intaadaan la soo gaarteen waad mahadsantiin dhammaantiina. insha Allah anigoo hilibka nooc kale u sameeyay muuqaalka xiga waaye daawada idin leeyahay insha Allah. waa kaasa qeyr caafimaad baa idin rajeynayaa. soo tijaabiya cuntada quruxda badan insha Allah. hablaheena yaa Allah horta gabadh Soomaaliyeed ma cid gaari karaysaa jirta. eeg waa baxsan boqorsan edabsan quruxsan bilicsan boqoran simman sagal saxsan xitaa hadday qaldan tahay iyadaa saxsan hadal ka keenin. markay nin ka hesho quruxdeeda iyo jidhkeeda bannaanka ma soo dhigto sababtoo ah taas dareenkiisay soo jiidanaysaa isagoo dhan ma soo jiidanayso. dareenkiisa hadduu fushadana wuu tegayaa laakiinse waxaa ku soo jiidataa caqligeeda kartideeda dadnimadeeda edabteeda ra'yi wanaaggeeda fikirkeeda akhlaaqdeeda dadnimadeeda